داسيو طبعا داود طبعا doorashooyinkii ka dhacay ee caasimada bishii December طبعا 20 sanadka hore ee lagu doortay golaha deegaanka inooga sheekay maalintii aad raadisay qof iyo cod lagu doortay degmada Kaaraan adigoo hore aadan doorasho u arkin qof iyo cod hore u arkin maxaa dareenka soo ah wallahi horta wiil dhalinyaro ah marka aan ahay aniga oo kaliya ma ahan dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku dhalatay ayadoo la qaxayo oo kaleeto ayadoo dhibaato badan ay socoto ayadoo dawladnimo aysan arkeenin haddii la dhahay maanta waxaa loo dareerayaa doorasho qof iyo cod ah qof kastoo dhalinyaro ah waa mid sharaxan oo la dooranayo ama waa mid codkiisa baxsahayo ee qofkii matay lahay uu dooranayo xaqiiqdii waxay ahayd dareen cajiib ah dhalinyaraduna waxa uu iftiimay rajo iyo mustaqbal sidoo kale tan dareen dawladnimo dareemeen inta ugu badan dhalinyarta Soomaaliya no government aaminsan jireen laakiin maalintii la arkay shacab u dareeray doorasho iyo xarumo doorasho lagu qabanayo in badan oo dhalinyarta Soomaaliyeed kamid waa maalintii ay dareemeen dalkan dawlad inay ka jirto way Daawud dhalinyarada Soomaaliyeed waagii hore waxa ay ku andacoonayeen siyaasadda oday baa nagu hortaagan siyaasadda dhaqaale baa nagu hortaagan siyaasadda waxa weeyaan qof kale oo reerka ah ayaa wali nool oo dhahay qofka saacado wax ma taqaanid isaga baxaya haddii maanta qof iyo cod la aaday dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa marsi u noqon doona degmadiisa waayaan wallahi horta dhalinyarada Soomaaliyeed inta ugu badan waxa waaye inay ka faa'iideystaan doorashada qof iyo codka ah waa arin ay diyaar u yihiin waxaana ku sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan nahay maanta doorashadan qof iyo codka ah la qabanayo waxaan u aragnaa fursad aan ku argoosan karno shalayto waxa waaye waxaa jiri jireen xildhibaanadaas oo ku soo bixi jireen in ay odayaasha qabiilka kisiro lacag intee siiyaan saas lagu soo doorto xildhibaanadaas ayagoo magacii tolka iyo magacii reerka wax ku cunayo ay haddana taleefanadu nagu dhageysan jireen haddaan shaqo u baahano oo wax noo soo raadiyo aan dhahno ay noo diidi jireen xitaa la kulankooda waqti nagu qaadan jiray laakiin maanta hadday noqoto doorasho qof iyo cod ah xitaa xildhibaanada federaalka ay noqoto mid kastaba deegaankiisa iyo doorasho qof iyo cod ku imaanaya xildhibaanadii shalay taleefanadu nagu dhageysan jiray maanta dhalinyaro haddaan nahay wayna soo wici doonaan wayna soo raadsan doonaan ayagoo dhahayaan codkiina na siiya waana fursad aan kaga argoosan doona sidii shalay taleefanada ay noogu dhageysan jireen maanta markayna soo wacan anuguna waa ugu dhageysan doonaa way oo santahay qaybta madax soo gaarnay